kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka galwareed media qodobada ku daawan doontaan waxa ugu dooron odayaasha beesha Saleebaan ee ka qayb galaya shirka Dhuusamareeb oo ku hadlay hadal aad uga nixiyay Xasan Cali Kheyre muxuu yahay hadalka waad maqli doontaan Robert Mugabe madaxweynihii hore Zimbabwe oo geeriyooday Kheyre oo ka digay in siyaasad laga dhex raadiyo dhismaha galmudug isagoo dad gaar ah faraha ku fiiqaya dawladda Soomaaliya oo ka hadashay go'aanka maxkamadda ICJ Xasan Cali Kheyre oo lagu wado inuu booqdo deegaanka ku yaala Koonfur Galbeed hagaaga haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka hagaag intii aad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal aan ku bilowna galmudug mid ka mid ah odayaasha cadaada kana mid ah saxiixayaasha beesha Xaaji Saleebaan kuna sugan magaalada Dhuusamareeb oo xalay ka furmay shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ayaa aad u soo jeediyay dawladda Soomaaliya Imaam Umar Macalin Abshir ayaa Kheyre ugu baaqay inuu tago cadaado soona qanciyo dadka magaalada ku dhaqan oo sulug badan ka qaba sida ay wax u wada dawladda Soomaaliya ee ka qaybgalka shirka dib u heshiisiinta galmudug imaamka ayaa sidoo kale sheegay in haddii aan la qancin beeshiisa uu ka baxayo shirka dib u heshiisiinta galmudug annaga reer cadaado dhegteenay gasho dhegta kalena waa ka baxday qalbigeennana waa gasho mar baan wax maqalnaa markaan maqalnana waa ku dhegnaa ma ahan qodbasiro mana ahan war la qalinayo dal iyo dibad Saleebaan meelay joogaan warkaasna waana u duubayaan wayna rabaan warkii noocaas aan u hadalnay waxaa laga soo daayay oo kaliya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyaddu waa mahadsan yahay wuxuu Dhuusamareeb ka qabtay waa mahadsan yahay dacwaan ka naamudan ra'iisul wasaare dacwaan ka nahay ismada Soomaaliyeed ka mid ahay nin waxaan ma garanaysaa mas'uuliyad iyo maamuus ku yimid warkii aan jeedinay in qaybna la jaro qaybna la soo daaya nama qabato annaga dawladdu waa dawladeennii ra'iisul wasaaruhu waa ra'iisul wasaareenii dawladda iyo ra'iisul wasaaraha iyo dalka qaybtaan ku leenahay waa ka qaadanaynaa laakiin qaybta aan concernka ka qabno ama aan dooda ka qabno mudane ra'iisul wasaare Cadaado waxay rabaan inay kaala hadlaan hadda waxa jooga Dhuusamareeb 100 qof ah joogta aniga adigu Cadaadaan ku wada hadalnay waxa tiri odayaasha Dhuusamareeb hay yimaadeen waxaan ku yiri Dhuusamareeb ma khayrkii baa yaala anaa haye hal yimaada tiri waa ku nimid martiyaan caawa ku nahay adaan ku joognaa dalabkaagiyaan ku nimid inaadna qaabishaan rabnaa wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye walaalkeenan fariin ku soo farnay runtii asagoon soo gudbin inaan sheego waan dareemayaa laakiin culayska annaga haystaa ka daran dadkan matalna ay kuma qanacsana ilaa tabashadooda la xalliyo siday wax u socdaan mudane ra'iisul wasaare kuma qanacsana waxaan rabnaa Saleebaan inaa qaabisho waxaan rabnaa Cadaado inaad tagto waxaan rabnaa tabashadooda inaa xallido waxaan caawa ku sheegaynaa annagoo mas'uuliyadaada jecel annagoo garabkaaga taagan Cadaado waxay rabtaa inaad qanciso inaad u tagtaan ka rabnaa dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay go'aanka maxkamadda ICJ Ambassador Ali Said Fiqi oo ah danjiraha Soomaaliya ee ururka midowga Yurub ayaa ka hadlay go'aanka ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ee dib loogu dhigay muddada 2 bilood ah kiiska badda ee u dhaxeeya dalka Soomaaliya iyo Kenya safiirka ayaa sheegay in ICJ go'aankaasi ay qaadatay kadib markii ay tixgelisay codsigii ka yimid dhanka Kenya iyo sidoo kale jawaabtii ay ka bixisay dawladda federaalka ee Soomaaliya Fiqi ayaa xusay inaysan wax dhibaato ah u arkin go'aankan isla markaana uuna ahayn mid dhibaato ku ah Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu tilmaamay inay soo dhaweynayaan talaabadani isla markaana ay ku faraxsan yihiin soo dhacay email soo dhacay oo ka yimid maxkamadda ICJ-da maxkamadda marka waxay noo soo gudbisay go'aankeeda ah in markay fiirisay codsiga Kenya iyo codsiga Soomaaliya marka iyadoo ka xun waxay go'aan ku gaartay in maaragtay 2 bilood dib loo dhigo 2daas bilood maaragtay oo ku aadan bisha November 4 wiiga bisha November 4 ayuu bilaawanayaa maalinta Isniinta oo bisha 4 ah ilaa Jimcaha u soconaa hadii la yiraahdo runtii horta maxkamadda badanaa aalaaba waxay maaragtay tixgelisaa codsiga labada dawladood marka waxay qiyaastii aniga ila tahay in maaragtay isku dayday in codsiga Kenya ay tixgeliso Kenya ay tixgeliso marka waxay
timid meel macquul ah oo maaragtay 2 bilood gudahood in keeskan maaragtay lagu dhageysto muddo ku filan ay Kenya haysato ay isu diyaariso ay ku imaan karto ayaa la siiyay laana waxaan u aragnaa go'aan runtii fiican oo maaragtay 2 bilood waa berito bisha October baa naga xigta November bilowgeeda waay marka anaga waxaan u aragnaa go'aan runtii oo anaga dhibaato nagu ahayn maaragtay waa soo dhaweynaynaa Abdullaahi anaga hooleen waxay ka bedelaysaa male hooleen baashi qoraalkii wixii dhan isdhaafsigii fikradihii iyo qoraaladii waa dhamaadeen marka anaga waxaan isu diyaarinaynaa kaliya waxa waa bisha 4 November inaan halkaas tagno aan dhageysigu diyaar garowno ICJ ayaa xalay ku dhawaaqday in dib loo dhigay dhageysiga dacwadda labada dal waxaana la dhageysan doonaa 4 November ee soo socota ee sanadkan iyadoo dooddu ay ugu horreey doonto Soomaaliya Robert Mugabe madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe oo geeriyooday waxaa geeriyooday madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe kadib xanuun muddo badan hayay sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah eheladiisa oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta caalamka Master Mugabe ayaa in ka badan 30 sano madaxweyne ka ahaa dalka Zimbabwe waxaana xilka looga qaaday afgambi military bishii November ee sanadkii 2017 taasoo soo afjartay xukunkiisii socday in ka badan 30 sano Robert Mugabe wuxuu ahaa 95 jir wuxuu dhashay 21 February 1924 xilligaas oo Zimbabwe laga garanayay Rhodesia wuxuuna xabsi ku jiray in ka badan 10 sano kadib markii uu eedeeyay dawladii gumeystaha ee Rhodesia ee sanadkii 1964 sanadkii 1973 isagoo xabsi ku jira ayaa loo doortay madaxweynaha xisbiga ZANU ee Zimbabwe kaasoo uu ka mid ahaa aasaasiyaashiisii Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay inay jiraan dad ku fikiraya waxa ay ka heli karaan dhismaha galmudugta cusub hase yeeshee kuwaas looga baahan yahay inay ka fikiraan mustaqbalka dadka reer galmudug wuxuu hadalkiisa intaas ku daray in dadka ku howlan dhismaha galmudug sida ay u dhaqmaan in ay ku xiran tahay mustaqbalka dadka ay matalayaan wuxuuna ugu baaqay odayaasha iyo waxgaradka deegaanada galmudug inay noqdaan kuwa isku dulqaata isagoo hadalkan jeedinayay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre shirka dib u heshiisiinta galmudug oo xalay magaalada uu ka daafuray uu sheegay in shirkan uu gogol xaar u noqon doono hay'adihii kala duwanaa ee uu lahaa maamulka galmudug lana doonayo in la sii xoojiyo hadalka Ra'iisul Wasaare Kheyre ayaa ku soo aaday xilli ay jiraan siyaasiyiin fara badan oo doonaya inay ku loolamaan doorashada galmudug kuwaas oo haatan bilaabay ololahooda musharaxnimo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa xalay kormeeray degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa xalay howlgal kormeer ah ku sameeyay degmooyinka Shibis Boondeere Shingaani iyo Kaaraan kormeerka ayaa ujeedkiisa ahaa mid uu duqa magaalada Muqdisho u gurgalayay sida ay maamulada degmooyinka iyo saraakiisha amniga ee saldhigyada ay habeen uga falgalaan howlaha amniga caasimadda kormeerkan gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Cumar Finish ku sameeyay degmooyinka waxa ku wehelinayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin fara badan oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir Xasan Cali Kheyre ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu booqdo deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cali Kheyre Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa maalmaha soo socda waxa lagu wadaa inuu booqdo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida la sheegay Kheyre ayaa safar ku mari doona deegaano ka tirsan maamulkaas sida gobolada Baay iyo Bakool magaalooyin kamid ah gobolada Baay iyo Bakool ayaa waxa la suuray sawirada Xasan Cali Kheyre waxaana mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska Ra'iisul Wasaaraha inoo sheegeen in maalmaha soo socda ee toddobaadka ay nagu soo wajahan Xasan Cali Kheyre uu gaari doono magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya markaana daawadayaal warkii dibadda dawladda Turkiga ayaa digniin u jeedisay Yurub iyadoo uu sheegaysa in haddii dalabkeeda la fulin waayo ay qaadi doonto tallaabo culays weyn u keenaysa Yurub madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku goodiyay in wadankiisa uu dib u furi doono marin ay qaxootiga Suuriya uga gudbi jireen qaaradda Yurub wuxuu si adag Turkiga
u dalbanaya in la taageero sidii uu goob nabdoon oo qaxootiga joogi karaan looga sameyn lahaa waqooyi bari ee dalka Syria. Erdogan ayaa sheegay inuu u baahan yahay in laga caawiyo dhinaca istiraatiijiyadda. Turkiga ayaa hadda marti gelinaya in ka badan 3.4 milyan oo qaxooti reer Suuriya ah kuwa uu ku barakacay dagaalada sokeeye ee ka holcaya wadankooda. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Galwareed Media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka.